بسم الله الرحمن الرحيم مالين wanaagsan daawadayaal waxaad naga daawanaysaan dunida news tv maanta waxaan idin hayaa sida lagu joojin karo colaadaha sokeeye ee aanooyinka qabiil ee ka jiro gudaha dalkeena Soomaaliya waxaan wax ka weydiinay bal inuu aragti inaga siiyo sida lagu joojin karo dagaalada aanooyinka qabiil ee ka jira dalkeena Soomaaliya ChatGPT oo aad wada garanaysaan maskaxda iyo fikirka ku jira ChatGPT ee la xiriira joojinta dagaalada aanooyinka qabiil ee ka jira dalkeena Soomaaliya bal waxa uu ka yiri ayaan isla fiirin doonaa ee ina keena hadda ayaan su'aasha weydiinaynaa sidee loo joojin karaa dagaalada aanooyinka qabiil ee ka jira Soomaaliya okay jawaabtu soo saar already waa jawaabtu waa diyaar waxa uu leeyahay dagaalada aanooyinka qabiil ee ka jira Soomaaliya waa dhibaato muddo dheer soo jirtay waxaad moodaa inuu wax badan kala socdo waxayna salka ku hayaan ayuu leeyahay arrimo badan oo isbiirsaday sida dagaal sokeeye kala dambeyn la'aan dulmiga cadaaladda iyo la'aanta dawlad dhexe oo xooggan marka si loo joojiyo dagaaladan waxa loo baahan yahay ayuu leeyahay ChatGPT xalal isugu jira mid siyaasadeed mid dhaqan mid bulsho waxa sidoo kale leeyahay halkan waxa ku qoran dhowr talo oo muhiim ah haddaba maxay yihiin talooyinkaas waa tageena waxa leeyahay qodobka ugu horeeya waxa loo baahan yahay dib u heshiisiin dhab ah maxay tahay dib u heshiisiin dhab ah muxuu la jeedaa ChatGPT isaga ku sii macnaynay wuxuu leeyahay waa in la abaabulo shirar dib u heshiisiin ah oo run ah ka madax banaan dana gaar ah ama qabiilaysan waa inay yihiin shirarka iyo barnaamijyada la sameeyo kuwa ka madax banaan dana gaar ah odayaasha dhaqanka culimada iyo bulshada rayidka ah waa inay door weyn ka qaataan dib u heshiisiinta dhabta ah door weyn waa inay ka qaataan labo wuxuu leeyahay garsoor cadaalad ah oo madax banaan waxa muhiim ah ayuu leeyahay in la dhiso nidaam garsoor oo xallin kara muranada si cadaalad ah si dadku aysan ugu noqon gacan qaad maxkamado dhaqameed iyo kuwa rasmi ah ayaa isgarab socon kara si loo gaarsiiyo cadaalad degdeg ah marka waxa uu leeyahay garsoor cadaalad ah oo madax banaan loo baahan yahay oo yaani meelna aanan u jarjeerin waa in garsoorku uu noqdaa mid cadaalad ah oo qofka qaldan xataa hadii uu yahay kan asiga la dhashay intuu gacanta ka soo qabtay yiraahdo warhooy waa qaldan tahay edeb xabsiya tahay wariya marka sidoo kale maxkamada dhaqameed iyo kuwa rasmi ah oo dawladeed ayaa isgarab socon karo si loo gaarsiiyo cadaalad degdeg ah bulshada waxa uu leeyahay qodobka saddexaad haddana hubka dhigista bulshada hubka oo gacanta shacabka laga saaro waa mid kaalin weyn ka qaadan kara yareynta dagaalada sokeeye tan waxay u baahan tahay dawlad awood leh kalsooni shacabka leh iyo barnaamijyo bedel u noqda hubka sida shaqo abuur in loo sameeyo dadka lagu baraarujiyay inay beeraha fashaan xoolaha dhaqdaan yaani in dadkii wax bedel u noqon karo hubka loo sameeyo afar waxa uu leeyahay wacyigelin iyo waxbarasho bulshada waa in si joogto ah loo wacyigeliyaa lagana dhaadhiciyaa in aanooyinka qabiilaysan aysan wax faa'iido ah u lahayn waxbarasho sareysa iyo baraarug bulsho waxay hoos u dhigaan colaadaha marka meesha waxbarashadu ay ku faafto dadku ay baraarugaan waxbarashada faa'iidaday leedahay ee arkaan waxa meesha ka baaba'aya colaadii iyo dhibaatadii ay dadku isku qabeen qodobka shanaadna waxa uu leeyahay dawladnimo xooggan iyo maamul daahfuran dawlad dhexe oo awood leh ayaa loo baahan yahay oo ku shaqeysa sharciga kana madax banaan qabyaalad waa tiir muhiim ah dawladda noocaas ah waxa uu leeyahay sidoo kale maamulada hoose ee degmooyinka iyo gobolada waa inay ku dhismaan hufnaan iyo cadaalad يعني waa inay dadku soo doortaan oo dad la soo doortay oo cadaaladda iyo maaragtay wadajirka bulshada ka shaqeynaayo waa inay noqdaan waa maamulada degmooyinka iyo gobolada
qodobka lixaad ee ChatGPT waxa uu leeyahay ka shaqaynta kobcinta dhaqaalaha. badanaa colaaduhu waxay dhacaan marka khayraadka yar yahay ama lagu murmo. haddii la hormariyo dhaqaalaha iyo shaqo abuurka waxaa yaraada dagaalka. waana sax. qofka maanta haddii uu haysto shaqo uu ku mashquulo waxa laga yaabaa haddii la yiraahdo nakeen maanta waxaan aadaynaa reer Hebelan dadka soo dilaynaa waxa laga yaabaa inuu yiraahdo warna daaniyo wanaga beertii ay iga dayacan oo maanta beertii waxay rabtaa in ma aragtaa dalagii aan ka soo gurto dalagii diyaar buu noqday in la gurto rabaa. laakiin haddii ay dhacdo in kaligii intuu beer tabcaday beertii reer kale ay ku soo duulaan ninkii beertii laga xoogo asagana qorigiisu dhinac ka qaadan doona. marka yacni si loo joojiyo dagaalada sokeeye waxa loo baahan yahay in la hormariyo dhaqaalaha iyo shaqo abuurka. ChatGPT ayaa fariimahaasi inala wadaagay. haddii aan nahay Soomaalina waxaan ogala baahan yahay inaan fariimahaas qaadano kuna dhaqanno. dunida News TV ayaad inaga daawanaysaan. intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.